لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ilaahay subxaana wa tacaala dumarku waxa uu ka siiyey diinta door muhiim ah, taasoo loogu talagalay sidii ilaahay ugu talagalay inay markaa uga soo baxaan. doorkeeday gabadhu ka qaadan kartaa dacwada islaamka? halkeesayna ka taagan tahay diinta islaamka? sideedaba dumarka marka la fiiriyo, rabbi subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigay mujtamaca lafdhabarkiisa. sidaa darteed baa maryamo hooyadeed mar allaala markay uur ka qaaday waxay tiri, rabbi innii nadartu laka maa fii badnii muxararan. rabbiyow, calooshayda waxa ku abuurmay adigaan kuugu nadray inaan kuu xoreeyey, ee fataqabbal minii innaka anta asamiicu alcaliim. waxay isdhehaysay wiil baad dhali doontaa, waxay isdhehaysay wiilka aad dhali doonta baytalmaqdis ha ka khidmeeyo, diinta ha u shaqeeyo, dacwada ha u soo jeedo. saasaa hadafkeedii ujeeddadeeda ahayd. mar allaala markii ay fooshii qabatay, gabar bay dhashay. markaasay tiri, rabbi innii wadactuhaa unthaa. ilaahu dhadig baan dhalay. ilaahay xikmaddiisay ku dhashay. dumarku inay dacwo weyn qaadan karaan ayaa meesha rabbi dadka tusahayay. waxaa meesha xikmad cajiib badan ku jirtay. bacdamaa ay u nadartay waxa caloosheeda ku jira ilaahay, inuu diinta u shaqeeyo, inuu dacwada ummadda gaarsiiyo, ayay tiri, rabbi innii wadactuhaa unthaa. aad bay u shallaynaysaa. waxay isleedahay, unthaad dhashee say diinta ugu shaqayn kartaa, say dacwada dadka u gaarsiin kartaa, say uga soo bixi kartaa doorka loogu talagalay dumarku inay diinta ka qaataan. rabbi innii wadactuhaa unthaa wallaahu aclamu bimaa wadacat walaysa aldakaru kaalunthaa, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. dakarka iyo unfaha isku mid ma aha. sidaa darteed ilaahay wuu ogaa wixii ay dhashay. gabadhaa miyaysan mafal cajiib badan u noqonin dadka oo dhan? miyaysan mafal maryamo u noqonin gabdhaha muxsinaadka ah, ee muslimaadka ah, ee saalixaadka ah, ee qaanitaadka ah, ee taa'ibaadka ah, haddana caabidaadka ah? ilaahay muxuu kitaabkiisa ku yidhi, wa maryama bnata cimraana alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitiin. aad buu ilaahay u ammaanayaa subxaana wa tacaala. maryam mafal baa ku jira. maryama tusaalaa alla ka dhigay subxaana wa tacaala, banaadka iyo dumarka oo dhan ugu jirta, balse dadkoo dhan ugu jira. sidaa darteed buu ilaahay yidhi, wa maryama bnata cimraana alatii axsanat farjaha. intaa kadib fanafakhnaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha. waxay rumaysay rabbigeed kelimooyinkiisii, kutubihii alla soo dejiyey. qaanitaadkay ka mid ahayd, qaanitiintay ka mid ahayd kuwa ilaahay ateeca subxaana wa tacaala. idan dumarku camal fiican bay qabtaan, dacwaday dadka gaarsiiyaan, kayfiyad kastay ummadda ku gaarsiin karaan bay ku gaarsiiyaan. faاstajaaba lahum rabbuhum. rabbigood ayaa ka ajiibay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wuxuuna yidhi, annii laa udiicu camala caamilin minkum. anigu ma dayacaya caamil camal qabtay oo adinka idinka mid ah. macnaha mid shaqaalo ah oo shaqo qabtay oo adinka idinka mid ah. camalkaasi waa diintoo lagu dhaqmo, waa ummadoo la gaarsiiyo, waa khayrka iyo wanaagoo laysku guubaabiyo, waa awaamirta ilaahay oo la fuliyo. faاstajaaba lahum rabbuhum.
rabbigood ayaa ka aqbalay oo ka ajiibay. wuxuuna yidhi annii laa udiicu, anigu dayici maayo, ka halayn maayo, la weysiin maayo camala caamilin, caamil camal uu qabtay oo minkum idinka mid ah, min dakarin aw unhaa, lab ahaayaa ama dadig ahaatayaaba, hadduu nin yahay iyo hadday naag tahay, waayo bacdukum min bacd, qaarkiin ayaa qaarka kale ka ahaaday. wax isdhalay baa tihiin. laba qofood marka la fiiriyo waxaa karaamo badan alla agtiisa qofka diinta iyo alla u dhow subxaana wa tacaala, qofka dacwada ummadda khayr ka gaarsiiya. qofka ilaahay u dhow waa qofka diinka si fiican uga shaqeeya, labka iyo dhadiga labadaba. sidaa darteed ayuu ilaah yidhi min dakarin aw unhaa, ama lab ah ama dhadig ah, waayo bacdukum min bacd, gobolkiin gobolka kale ayuu ka ahaaday. ninka iyo naagta haddii naagtu ay tahay isqaba, haddii naagtu ay tahay mid daaciyad ah, gurigeedana ka shaqaysa, wixii waajibaad ah ee guriga laga saarayna ka soo baxday, haddana dadka khayr ka gaarsiisa, dacwada sabab ugu noqota, dumarka gobol ka mida xijaabku inay qaataan sabab ugu noqota, yaa fadli badan labadaba. mar walba ilaah wuxuu tilmaamay qofka fadliga badan, ina akramakum cinda allaahi atqaakum, kan ugu taqwo badan inuu yahay qofka ilaahay agtiisa u dhow subxaana wa tacaala. qof mar allaala markuu soo tooso shaqo aada, kadibna ka soo noqda, galabtii meesha qajilaad iyo qaad cunitaan u fadhiista, habeenkiina kubadda daawashadeeda u fadhiya, kadibna jiifa, subaxiina howl maalmeedkiisii sidaa yahay, iyo gabar markay seexanayso allasay dadku salaada u hagaajiyaan bay ku jiifataa. mar allaala markay soo toostaa ummaddu see dacwo loo gaarsiiyaa bay ku fakaraan. xaaladda noocaasa isku mid ma ahan. sidaa darteed ayuu ilaah leeyahay min dakarin aw unhaa bacdukum min bacd, waayo gobolkiin gobolka kale ayay ka ahaadeen. sidaa darteed dacwo fiican baa looga baahan yahay. jaanib walba oo diinta ka miday ka qayb qaadan karaan dumarka. sidaa darteed baad fahmi kartaa awal shahiida ama qof ilaahay dartii loo dilay qof dumara inay ugu horaysay, waa Sumaya ummu Cammaara. laa ilaaha ila allah afkeeda waa ka bixi waayey. Abi Jahal baa hortaagan, daaqii kale kibirka badnaa baa hortaagan. intaa waxay ku guubaabinayaan inay Laata iyo Cuzza ammaanto, nebi moxamed ilaaha uu sheegayana ay cayso. taa laftigeedaa dacwo ah. waxay ugu sugnaatay sida buuraha ad adag ay u sugnaadaan. kelimada tawxiidka afkeeda waxay ugu qabsatay si aad iyo aad u adag, ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abaalmariyey khayr iyo wanaag midda u sarraysa. waa la cadaabinaa, waa la dhibaataynaa, mashaakil baa la gaarsiinaa. nebi moxamed intuu soo agmaray orahdiisu tahay sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna. reer yaasiray sabra, diinta isaga adkaysta, in badan dulqaata, dacwo ayaad ummadda u tihiin, mawcidkiinana waa jannada. sidaa darteed bay mathal cajiib badan u noqotay, mathal khayr badan bay markaa u noqotay. sidaa darteed baa waxaa laga yaabaa oo loo baahan yahay waxay tahay habka noocaasa in looga soo baxo, habka noocaasa in looga soo dhalaalo. ilaahay wuxuu yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum wliyaau bacd. wiilasha mu'miniinta ah iyo gabdhaha mu'minaadka gobolkood gobolka kale waa uu awliyo. sababtu waxay tahay macruufkay dadka amraan, munkarkana way ka reebaan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. gobolkood gobolka kale waa uu awliyo. waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum wliyaau bacd. maxay qaarkood qaarka kale weli ugu noqdeen? sababtuna maxay tahay? waa ya'muruuna bilmacruuf, waa macruufkay dadka amraan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. labadooda ayagoo isku jiray macruufka amraan. idan in badan oo ayaga ka mid ah inay ducaad noqon karaan, dowrna ay ka qaadan karaan buu ilaahay tilmaama subxaana wa tacaala. ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari, munkarka iyo xumaantana way ka reebaan. maxay kaloo sameeyaan? wayuqiimuuna asalaata, salaaday oogaan. wayu'tuuna azakaata, zakaday gutaan. wayutiicuuna allaha warasuulahu, ilaahay iyo rasuulkiisana way ateecaan. ulaa'ika sayarxamuhum allah,
kuwa ilaahay waa u raxmana subxaanahu watacaala, kuwa ilaahay waa u naxariisana. sababtu waxay tahay ina allaha casiizun xakiim. ilaahay alla casiizoo amarkiisa qaalib yahoo xakiim ahoo fal fiican waaye. ducaad bay noqdeen ayagoo rag iyo dumar isugu jiree maxaa abaalgud u ah? ilaahay baa tilmaamay, wacada allah almu'minuuna waalmu'minaat, wiilashii mu'miniintee ducaadda noqday, kuwii gabdhaha mu'minaadkee ducaadda noqday wuxuu ilaahay u diyaariyey jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar, jannooyin hoostooda ay webiyaa la soconayaan. sidii ay u dadaaleen oo ay dacwo ugu dadaaleen oo ay dadka macruuf u amreen oo ay munkar uga reebeen, ayaa haddana ilaahay wuxuu u diyaariyey una ballan qaaday jannooyin hoostooda ay webiyaa la soconayaan, khaalidiina fiiha, way ku dhex waarayaan buu yidhi ilaahay. wa masaakina tayibatan, guryo tiib ah, masaakina tayib ah oo fiicfiican bay ku sugan yihiin, oo fii jannaati cadnin, jannooyin nagaadi ah. say dacwada ugu dhex nagaadeen baa ilaahay jannada ugu nageeyey subxaana wa tacaala. say guryahooda dacwada ugu fuliyeen ayuu ilaahay masaakino tayib ah iyo guryo fiicfiican ilaahay dejiyey subxaana wa tacaala. iyo wa ridwaanun min allahi, raadi ahaasho ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaa akbar, weyn buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rabbi ayaa ka raali noqday. sababtu waxay tahay camalkay qabteen baa wuxuu ahaa camal ilaahay raalli ka yahay. camalkay sameeyeen ayaa wuxuu ahaa camal ilaahay jecel yahay. bacdamaa camalkaa ay qabteen wa ridwaanun min allahi akbar, dalika huwa alfawz alcadiim. kaana waa fawz iyo liibaan weyn buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. fawz cadiim ah oo weyn ayuu markaa ahaaday. idan jaanibiyo badan ayay ka soo bixi jireen. meel walba oo dacwo ah iyo qayb kastay ka qaadan karaanna markaa way samayn jireen. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xakiimka uu ku tilmaamay dumarka gobol ka mid ah, faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah. waa gabdho saalixaada buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala, haddana qaanitaad ahoo ilaahay ateecay, haddana xaafidaad ahoo qayb ka xafidsan bimaa xafida allah, ilaalinta ilaahay sababteed subxaana wa tacaala. idan dacwadu idan waxay noqotay wax ay ka qayb qaadan karaan rag iyo dumar labadaba. waxay ka qayb qaadan karaan qof kastoo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ka raba qayb iyo wanaag inuu markaa gaaro. gabar gabdhaha ka mid ah yaa rasuulka sal allau calayh wasalam xilligiisii riwaayadaha qaarkoodna nin bay tilmaamaane waxay ahayd mid masaajidka kanasta ama xaaqda. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waayey baa la yidhi muddo. gabadhiina way dhimatay, kadibna waa la duuday, mana loo soo sheegin. nebiga sala allahu calayh wasalam ihtimaamka uu siinaya fiiri, waa qismi ama qayb dacwada ka mid ah. beydka ilaahayay xaaqaysay, gurigii ilaahay ayay markaa nadiifinaysay. markuu rasuulku waayey ayuu yidhi ayna fulaana, heblaaya aaway? waxay dhaheen maatad yaa rasuula allah, dhimatay. nebigu waa xanaaqay, afalaa kuntum aadantumuunii buu dhahay, maxaa iigu soo sheegi weyseen? maxaa iigu soo sheegi weyseen? hadda i tusiyey qabrigeeda. waa la tusiyey, waa ku tukaday nebiga ama waa u duceeyey. kadib buu dhahay qubuuraha gaararkeeda ku yaala oo dhan waxay ahaayeen kuwa mugdi iyo madow laga buuxiyey. ilaahay ayaa ku iftiimiyey salaadayda ama ducadayda. idan taa laftigeedu waa qayb ama qismi dacwada ka mid ah. waa qof dumar ah, waxay xaaqaysaa masaajidka, waxay xaaqaysaa beydka ilaahay subxaana wa tacaala. intaasoo dhan waxaa la tilmaamayaa khayrka iyo wanaagga ku jira ama ay leeyihiin dumarka gobol ka mid ah, sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo masaajidka ciidad ka dujiyey, raggii wacdiyey ayuu is yidhi amay dumarka maqlinba. waa soo aaday, markaasaa wuxuu yimid dhanka naagaha asagoo bilaal cuskan. rasuulku hadallada uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa maalintaa yaa macshara annisaa, war dumaroo sadaqadana ku dadaala, waxaadna badisaan astakfirullah kelimada la yidhaahdo, waayo waxaan idin arkaa akthar ahli naar inaad tihiin, ahlu naar kuwa ugu badan inaad tihiin. waa guubaabinaa rasuulka, wuxuu rabaa inuu ku guubaabiyo wax kastoo ficil khayra inay sameeyaan.
wuxuu rabaa inuu tusiyo wax walba oo fiican inay sameeyaan. waxaan idiin arkaa ahlu naar iyo xaabada ama dhuxusha naarta kuwa ugu badan. idan meesha waxaad ka fahmi kartaa bacdamay dumar joogeen inay gabar tiri bima yaa rasuula allah, maxaa dhaca rasuulka ilaahayow, waad kufrisaan buu yidhi. markaasay ku dheen ma ilaahayaan ku kufrinaa? maya, cashiirada iyo ragga idinqabaad ku kufrisaan. axad idinka mid ah haddii sana ama dahar asxaan loo sameeyo oo daqiiqad xumaan ay aragta buu dhahay nebiga, waxay dhahaysaa lam ara khayr qad, weligayba wax khayr ah ma kuugu arkin. idan nebigu wuxuu rabaa inuu dacwo gaarsiiyo, wuxuu rabaa ummadda inay ayagana sii gaarsiiyaan, inay fiiriyaan oo ay ku dhaqmaan oo khayrkii wanaagga loo sheegaayo ay markaa qaataan. xaaladahaasoo dhan waxaad ka fahmaysaa mar walba oo dumarka gobol ka mid ah ee nebiga la noolaa sala allahu calayh wasalam ay wax ka maqlaan haddana aysan fahmin, way u laabanayeen. maalin buu rasuulku yidhi man xuusiba cudib, qofkii la xisaabo waa la cadaabay. caaisha waxay tiri yaa rasuula allah, ilaahay ma dhihin miya fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira, mar dambaa xisaab sahlan oo fudud la xisaabi doona. rasuulku wuxuu yidhi yaa sadiiq binti caaishay, midda ilaahay tilmaamaya waa cardi iyo bandhig. ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa marka uu xisaabayo wuxuu geliyaa kanaf ama astur dadka looga qariyo. markaasuu le addoonkaygii maalin hebel dembigaa ma samaysay? haa. maalin hebel dembigaa ma gashay? haa. ilaa uu yaqiinsada inuu halaagsamay. qof ujeedana ma laha, waa kuu qariyey inta adduunka la joogo, maantana waa kuu qariyeye orod ehelkaagii u laabo. wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran, markaasuu ehelkiisii u noqonaa asagoo masruur ah oo faraxsan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. taa waaye midda ilaahay sheegahayo. laakiin qof allaala qofka xisaabkiisa lagu dheerdheeraado waa la cadaabay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. idan caaisha waxay ka mid ahayd dumarka ducaadda ah, waxay ka mid ahayd dumarka khayrka iyo wanaagga dadka u sheega. abuu muuse wuxuu yidhi masale aan isku qabsanan ma jirto ilaa caaishaan u imaanaynay, agteedana cilmiyaan ka heli jirnay radia allahu tacaala canha. caaisha xaaladahaasay ku tilmaami jirtay. nin saxaabiya u yimid oo yidhi caaishay su'aalaan rabay inaan ku weydiiyey, waana kaa xishoonaa, hooyadaa oo kale saad wax u weydiinayso ii weydii bay tiri caaisha radia allahu tacaala canha. idan caaisha iyo in allaala inta la midka ah ilaahay subxaanahu wa tacaalana cilmiga ku manaystay waxay ahaayeen kuwo ducaad ah, waxay ahaayeen kuwa dadka xaqii wanaagga gaarsiiya. xaaladahaasoo dhan ayaa waxaa la tilmaamayaa ummadda khayrka iyo wanaagga qayb badan oo ka mid ah in xaggooda markaa uu uga yimid. ummu catiya waxay wax badan tabisaa ama ay sheekaysaaye ka hadashaa axaadiisyo badan. waxay ka mid ahaan jirtay tabiibyaadka ama dhakhaatiirta wax daaweeya. xilligii rasuulka sala allahu calayh wasalam 7 duulaan ayaa nebiga u raacay bay tiri ummu catiya, intaba jaraadkii ayaxaan cunaynay. xaaladdaa waxaad ka fahmaysaa in allaala intay la socdaan nebiga cilmiyaa ku soo degaaya, khayraa ku soo degaaya, diin baa ku soo degaysaa. taasay ummadda u tabin jireen. maxay tidhi waxaan ahayn kuwa nala amro inaan soo bixino cawaatiqda, xuyadka, dawaatuquduurka, intaasoo dhan in salaada ciidda loo soo bixiyo. waa gabdhaha dhiigga caadada qaba, waa kuwa maqabiyooyinka ah, kuwa cawaatiqda ee markaa la xoreeyey, dhammaan inaan soo bixino ayaa markaa nala amri jiray. waxay aad wax u tilmaamaysaa khayraadka faraha badan ay samayn jireen saxaabiyaadka. umu salama iyo caaisha ayaan u jeednay ghaswatu uxud ayagoo mar allaala markii dhaawaca muslimiinta batay inay waraabinayaan jeyshka wixii markaa dhaawac ahaa, inay daaweynayaan wixii dhaawacmay. xaaladahaasoo dhan waa dacwa min adducaad ka mid ah oo ay dumarku markaas samayn jireen. rasuulka sala allahu calayh wasalam sulx xudaybiya markuu aaday oo meesha uu tegey, waxaa dhacday in la soo diiday oo mushrikiintii ay ka xabiseen jidka, ayna u diideen inuu cimrada u gudbo nebiga. si kasta ha ahaatee muxaawalaad dheer oo la galay kadib waxaa go'aan lagu gaaray meesha in lagu xalaaloobo. rasuulka saxaabada wuxuu ku dhahay istaaga oo xiirta.
waxay dhaheen wax istaagaa la waayey, kaca oo xalaalooba, wax hadalka qaataa la waayey. asagoo mahmuum ah oo murugaysan ayaa wuxuu u galay xaaskiisa ka mid ah, lagu tilmaamo Umu Salama inay tahay. intaa wixii ka dambeeyey ayuu u sheegay sida xaalku wax u jiro, arrintu sida ay tahay. gabar kalena waa lagu tilmaamaaye say noqoto xaaskiisa ka mid ah ayaa waxay tiri, ma rabtaa in lagu ateeco, ma rabtaa in warkaaga ay yeelaan adoon qofna la hadlin. qofna waxaa sameeya dhin xallaaqii saaloonka u waco, gees fadhiisee bilow timahaaga inaad xiirato. sidii buu rasuulku sameeyey sala allahu calayhi wasalam. arrintii ayay ku baxday, arrintii ayuu sameeyey. saxaabadu mar allaala markay arkeen rasuulka oo sidaa samaynaya, isla markii hal mar bay wada kaceen, hal maray istaageen. xataa qaarkood qaarka kale uu sigay inuu sakiinta madaxa uga gooyo, degdega ay u samaynayeen ama ay u fulinayeen amarka. kuwa noocaasaa markaa ku jiray, kuwa hamigooda adduun keliya aan ahayn laakiin aakhira ku jira, kuwa hamigooda aan ahayn inay wax helaan keliya adduun laakiin hami ilaa xaggiisa waxa yaala ugu jira. dad noocaasay markaa ahaayeen. sidaa darteed baa wax badan waxay ku guulaysteen dacwada iyo khayrka iyo wanaagga, iska daa wax kale. xataa guurarkooda iyo soo doonashadooda iyo arooskooda marka la fiiriyo, dacway ku salayn jireen gabdhaha saalixaadka ah ee hore markaa jiray. sababta waxay tahay mar allaala markii Umu Sulaym gabadha lagu magacaabo uu soo doontay ninka lagu magacaabo Abu Talxa, waa ninka magaalada Madiina ugu hantida badan baa la yidhi. 600 oo geedtimireed ah yaa ugu tiilay beertiisa Bayruuxa lagu magacaabo. mar allaala markuu u yimid way rafdisay, Umu Sulaym way diiday. mar allaala markay diiday ayuu yidhi, waxaan u malaynayaa qof iga hanti badan ama iga lacag badan inaad markaa aragtay. ka laabay tidhi, sababta aan kuu diido waxay tahay, waxaad tahay mushrik, waxaad tahay qof gaal ah, waxaad tahay qofaan ilaahay rumaysnayn, laa ilaaha ila allah ise afkiisa ka soo baxaynin, ilaahay aaminsanayn. aniga waxaana imra'a mu'minad ah oo rumaysayn ilaahay iyo maalinta aakhira subxaana wa tacaala. ilaahay ayaan rumeeyey iyo maalinta qiyaamaha. haddii aad islaamto oo ilaahay subxaana wa tacaala aad isku xirto, kelimada tawxiidka aad ku dhawaaqdo, risaalada nebiga aad rumayso, wax kale oo lagugu diidayaa ma jiro. ninkii intuu tacajubay ee uu fikiray, dacway gaarsiinaysaa, waa xilligeedii, gacantuu ugu jiraa, wax allaala waxay rabtay ka samaysan kartaa. bacdamaa maanta kuwa jooga mar allaala markuu u soo gacan gala adduun iyo dahab iyo xoolo iyo waxaanba qiimo lahayn ay ku fikiraan, ayaa waxay ku fikirayeen dacwa ila allah. wuxuu yidhi waan rumaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala, nebigana waa aaminaa sala allahu calayh wasalam. kama yeelin intay soo waday nebiga u keentay sala allahu calayh wasalam. shahaadada xaqa ah iyo shahaadateynka xaqa ayuu ku qiray rasuulkii ilaahay agtiisa sala allahu calayh wasalam. Umu Sulaym hadalkay ku hadashay waxaa ka mid ahaa oo taariikhda baal dahaba ka gashay oo weligeed aan la iloobi karin, inay tiri yaa rasuula allah, meherkeygu waa islaamnimadiisa, laa ilaaha ila allahdan uu yidhi, islaamka uu soo galay, rumayntii ilaahay uu rumeeyey, kaasaa ani markaa mahad ii ah. tiibay meher ka dhigatay. lama jirto gabar ka baraka badan adduunka, acdam baraka ah meherkeeda Umu Sulaym radia allahu tacaala canha. ninkaasoo dhanba waxay ka soo badbaadisay dhuxulaha naarta inuu ka soo badbaado. waxay soo gelisay daa'irada islaamka, waxay u fidisay dacwo cajiib leh. idan dowr fiican ayaa dumarka looga baahan yahay inay ka galaan ama ay ka qaataan dacwada islaamka. si kastay xaaladdu markaa tahay, mahmaa kastoo duruufi ay jirto, iyo si kastii xaalad walbii kayfiyad walba oo markaa dacwo markaa loo gudan karo, waa shay muhiim ah oo markaa looga baahan yahay dadka oo dhan inay sameeyaan. khaasatan waxaa ilaah subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga iyo liibaanta uu ku tilmaamay ummadda ducaadda ah. sidaa darteed buu ilaah yidhi, waltakun minkum umma yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkari. ha laydinka helo ummad buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala, waltakun minkum umma
يدعون إلى الخير ضدك خيرك أقوعا ويأمرون بالمعروف معروف كان ضدك أمر معناها وناقا ضدك أمر لولا جيدا حمانت إيوحى إلهي ديدينا مركا أمدا كريبا ووح الله لوحي إلهي ديدي انتي أودو تهي كعلي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كواسا مركا الليباني ذاتكاس واي ذاتك أفلحي ee khayrkii wanaaga gaaray adduuniya aakhiro ilaa xaqa waxaan ka baryaynaa inuu xaqna waafajiyo taacadii diinta nagu sugo uma ducaad ah ilaahay naga dhiga subxaana wa tacaala dumarkana dowrka iyo maxa kaga aadan dacwada ila allah xaggiisa ah kuwa garta oo guta inuu ilaahay ka dhiga subxaana wa tacaala wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam